gurigan iga dambeeya waxaa ku nool fanaankii weynaa ee Farax Siido Farax oo kamid ahaa hawlada qaranka ee Waaberi goordho mar uu la hadlayay warbaahinta waxa uu sheegay in gabi ahaanba uu ka fariistay ama uu ka baxay fanka Soomaaliyeed waxa uuna fariin u diray fanaaniinta ku jira fanka iyo kuwa jecel inay hadda ku soo biiraan fanka Soomaaliyeed marka sidaas darteed waxaan idinku waaninaa inaad ma aragtay fanka iska dhaaftaan sida haddii aniga aan u dhaafooyo oo kale aniga hadda bis waaye fin bis waaye mar dambe fan aniga maleego arkaayo maxaa jiraadhe waa soo tacbaanay fan waa soo qabtay alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin waxaan ka soo qaban kara waa ka soo qabtay marka hadda waa ka toobad keenay kulligiina intii ani fanka aan soo baray ee intii kaleba intii ana aan kasaay waxaan dhihi lahay fanka inaad iska dhaaftaan ood ilaahay xaggiisa u soo naqataan marka sidaas oo kale ayaan idinkana idinku waaninayaa inaad fanka iska dhaaftiin oo ma aragtay oo ilaahay xaggiisa u soo naqatiin saliga nabiga iyo quraanka iyo ma aragtay cilmiga inaad barataan oo diinta islaamka inaad barataan ayaan idinku waaninayaa dhanka kale qaar ka mid ah ehelada Farax Siido Farax ayaa waxa ay ku taageereen go'aanka uu qaatay aabahood ee ah in uu gabi ahaanba ka baxay ama uu ka fariistay fanka Soomaaliyeed oo arintan aad ugu toobad keenay alxamdulillah waxa waaye maxmuud aan soo aan jeclaan waa marka saddex arin aan ku dari lahaa maanta wixii ka dambeeyay saacada wixii ka dambeeyay dawladda laba khiyaar dhankeeda waa ama aabe hadii wax siinayso inay ku siiso wad aan ahayn fankan wad aan ahayn inay ku siiso hadii wax siinayso hadaysan ahayn oo fankan kaliya ay ku siinayso aabe lacagtaas uma baana maanta wixii ka dambeeyay laakiin rubaantu waxa ka codsan lahay gaar ahaan idaacadaha TV-yada barnaamijyada ay qabanayaan inaysan aabe heestis ku soo dirin qofkii aragtana inuu meeshaas ku dhaafo uusan sii faafinin rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam at-tawbatu yahdim ma qablaha tawbada wixii ka horeysa way baabiisa wixii hor u sameeyay haduu ahaa fanaan ama jilaa ama wax kas uu sameyn jiray maanta aab waa ka toobad keenay alxamdulillah ilaahna ku arintaas ku maadsan Umar Buule Tusma TV degmada Wadajir Muqdisho